nin waxaa la oran jiray magaciisa Qays naag buu aad u jeclaa Layla la oran jiray Layla gabadha laakiin boqor baa dhalay isagu laakiin waa miskiin boqorkii baa inantiisii ku yidhi aabbo waad qaan gaadhay haddee toole soo kuma dhiso markaa bay tiri aabbo ninkaad ii dhisaysid anaa kuu sheegay markaas waa ninkee Qays baan jecelahay tiri qayskee askartii ciidankii Qays ma taqaan markaa mid miskiin oo magaalada dawarsada aabba ma abo ina boqora Qays jeclaan buu ku yidhi magaceenni baa biisay waxay tiri ninkaan inaan ahayn anigu guurkiisa uma fadhiya ninkaa mooyaane maxabada beenbeenta iyo maxabada runtan qisada u soo qaatay dhageysta waa qiso macquulana marka la eego runtii oo caqli gal ah oo wax lagu fahamsiinayay innaka gabadhii way weynaatay ninkiina uu iska waashay gabadhii waa loo diiday moogtahay xayraan buu noqday isaguna timo raanuu la baxayo qasriga boqorku ku wareegaa isagoo markaa magaceega ku celcelinaya xataa maalin baa la arkay isagoo gidaarkii dhudhunkanaya darbigii markaasaa dadkii ku yidhaha war Qaysow darbiga maxaa la dhunkano curi darbigana gidaarkana dhunkanaayo sii jeedkiisa Layla ku ciyaarayso fadhida buu yidhi waa cajiib soo ma haddana maalin kalaa la arkay ay isagoo dhudhunkanaya war aygana dhunkanaysana muxuu yahay waaladii ma ay bay kula gashay wuxuu ihi aqalka Layla ay ku jirto ka soo baxay buu yidhi dhageysta tu soo socotaa ka cajab badan gabadhii boqorkii si walba markuu dhinac walba kaga keenay wiilashii ay dhaleen madaxdu iska diiday ayaa boqorkii waxaa lagula teliyey marba hadday gabadhani waa ta weynaatee ninkana waalidiisu waali sii dheerba ma ahayn hala dabiibo oo timahana ha laga xiiro aqalka ha la soo geliyo waa nin iska qurux badane ha la dhiso gabadhana ha loo dhiso dhalinyaradii magaalada markaa waxay ogaadeen inuu boqorku rabo inuu Qays hadeetoola gabadhu iskaga dhiso boqorkii markaa ciidan buu diro wuxuu yidhi haddaba ninkii Qays ahaa soo qaado aqalka soo geliya geed uu markaa hoos deganaa waxaa loogu yimiday 20 nin oo Qays u wada eg dharkiisii bay wada xidheen waa dhalinyaradii markaa dhalinyaradii maadaama ay maqleen boqorku wuxuu damacsan yahay inuu ninkii Qays ee waalaa uu gabadhiisa iska siiyo isagoo kale markaa iska soo dhigeen halkii la filayay isaga in loogu tagaayo 20 nuuciisiyaa loogu yimiday markaasuu mid walba leeyahay orde Qays waa aniga markaasaa la dawakhay waa isku dhar waa isku timo waa isku hadal waa isku gadh si midaad boqorkii baa loo noqdo la yidhi boqorow meeshii nin keliya ma fadhiyeen 20 baan helay 20 nin oo wada Qays ku yahayna anagu garan mayno boqorkii baa inantii u yimid aabbo ninkii 20 buu noqday waxay tirin anaa garan Qayskii dhabta ahaa anigaa garanaye nin walba soo qaado qol ku xareeya qol baa lagu xareynayaa qol dhageysta waad maqlaysaan insha Allah markaasaa nin walba qolka lagu xareeya waxa loo geynayaa nin xoog leh oo seef wata ayaa loo geynayaa markaasaa su'aal baa la weydiin oo la leeyahay ma Qays baa tahay markaasuu leeyahay Qays baan ahay anaa Qays waxa kale waa beenaalayaal markaasuu leeyahay haddaad Qays tahay oo Layla aad jeceshahay waxay kaa tiri jirkaaga badh ii soo goo bal Musa waad qosasheen kii horeeyaa loo yimid ma Qays baa tahay ha Qays baan ahay le laba nin oo xoog la loo keeno seef wadata moogtahay oo askara waana aqalkii boqorka waa la soo xereeyay lama baxsan karo ma Qays baa tahay ha gabadhii waxay ku tiri haddaad Qayskii dhabta aad tahay jirkaaga badh ii soo goo bay ku tiriye halkeenu goynaa noo dhib ha goynay markaasuu yidhi war Qaysna ma yihiin hadda ridsi daayo albaabkaagu ka baxay وصل يا حبيبي
midba mar sidii loogu imanayo mid walba uu lahaa war qaysna mahi adeer isii daaya ilaahay da taqaanaan oo halkaa uga baxayay ayaa isagii dhabta ahaa baa la dul yimid oo la isdul taagay waa qays baa tahay markaasuu yidhi insha allah ha anigaa qays kuwa kalena wallaahi waxay yihiin garan maayo meeshoon bay igu yimaadeen oo gabadha waad jeceshahay ha waan jecelahay iyadna way jeceshahay dee waxay kaa tiri jirhkaaga bar ii soo goo halkeen goynaa noo sheeg wuxuu yidhi ayada ku noqdo ku dhahada halkee baad jecesha oo kuu soo gooyaa ka dhahada buu yidhi markaa bay tiri qayskii dhabta waa kaa ii soo saara bay tiri